warfaafinta ayuu wuxuu ahaa ilaaladiis qaaska ah. اوكي waxaad tiri ilaalinta qaaska ahaa ayuu wuxuu ahay maxamed gacmo dheere oo ahaa ninkii wasiirka warfaafinta loo magacaabay xilligii Almahdi Soomaa saas aad iyo aad ninkaas uu ahaa ilaaladiis ka tirsanaa ninkii markuu meeshaas ku soo galay asagoo tuuto wata qoray ka wato na soo galay kadib shaqaalihii magacadooda kala bartay reerahoodu kala barbartay meeshuu nala joogi jiray shaqaalaha waagas raad Muqdisho ka shaqeyn jiray marka shaqaalaha ka shaqeynay wariyaasha ka shaqeynay waxaan rabnaa bad inaad wariyaasha Soomaaliya dhan may u dhamaayeen bal si fiican ugu dhaqay horta Soomaali ay u dhamaayeen inta Soomaali ay ka koobanto dhan meesha joogtay wax wariye oo dadkana qabina ma jirin rag oo daarooda joogay dad hawiyaa joogay dad raxweena joogay dad diraa joogay kulli wala joogay meesha marka inta Soomaali ay ka koobnaayeen shaqaalaha marka aan bisraax u hadlo oo aanan waxba aanan qarin ninkan markuu meesha soo galay isla markii wuxuu ku dhex milmay shaqaalihii asagoo aad waagaas u daneynayay saxaafadda aad u jeclaa marka wuxuu dhigi jiray halkan wax lagu akhriyaa sidee wax loo akhriyaa aad u ahaa nin active oo dadka inuu dhex gala jecel qorigiisa inuu wadan jiray qorigii kama reebanayn asagoo marka studio la soo geli jiray taasoo qorigiisa wato marka ninkii markii dambe qor hor ma laha nin aqoon hor u laha nin dhisan miyuu ahaa bas nin iskay wuxuu ahaa wardiiska taariikh nololeed macnaha hadda intaad ka taqaano oo meesha ka barat asiga absalaam wallahi anaga asaga wuxuu noo sheegay anaga hor uma aan aqoon wuxuu noo sheegay inuu ahaan jiray macallin BB ah xilligii dowladda gacanka kadibna qorigaan aan qaato dhahay qorigii markii aan qaatay beeshan hadda aan ka soo jeeday ayaan u dagaalamay marka wasiirka ayaan qaraabo hoosanahay wasiirka ayaan u ahaa ilaalo saasuu ninkan nagu soo galay kadibna wuxuu dhahay waxaan rabaa inaan u diga rogto in aan ku biiro shaqaalaha wasaaradda warfaafinta hal la caawiyo marka madaxa raadiyaha waxaa ahaa oday la dhihi jiray allah u naxariistee dhaashane maxamed faarax dhaashane xilligaas madax idaacadda TV raadiyo Muqdisho waxa madax ka ah tiri dhaashana madax ka ah waa qaybta raadiyaha TV ma jirin oo malena ma shaqeynay TV howlgabo ah marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan wax dhab u sheego dad Soomaaliyeed meesha ku dhintay dad Soomaaliyeed haddii ninkan walaalkeena uu yahay dambiile oo dambigaas galay oo beelihii laga tirada badnaa ee daarad markaas magaalada ka qaxay oo dhibaateeyay iyo dad kale Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan bilsariix u hadalno oo Ilaahay ka cabsano run ahaantii aad sheegto hataa qofta marqaatiga koowaad Cabdisalaam mar labaad ku cilna xusuustaada inaad dib ugu noqoto adoo ka faa'iideysanaya arrintan arrin sahlan maahan nin Soomaaliyeed way nin waliba reer caruur haysta way inaan ku gefno ama dambi ka galno marno waa nin Soomaaliyeed laakiin hadduu dambi shacabka Soomaaliyeed ka galay qabiilku doona ka gal waxaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed loo cadeeyo marka waxaan rabaa badina xusuustaada intaad ka barat intii yareed oo taqiin intaad ka barat bal adoo u sii dhacay falaalka iyo sheekada si u dhacday bal waxaan rabaa inaad intaad ka barat inaad noo taabato adoo maasan دي بعد هذا ما صرت أنا قلت الله متر أسوقي سعد بنا آدنا وأنا متقنا كبقى أما في حشوان بجرس قفك حقيقة أنا قدي هو إذا كل شيء أداة دم بأمد كجشيد وأنا نولا مكاس عن لا يعني ونكاس أمد على قبض لك هذا كوار أيوب جيستي نكني مركو شغالي أساس أقوم من المي وحال وحري نلي عبد الشيء علي أسقبو يقانا الله يرحمه عبد الشيء معناها وهو شغال نجعلوها مركا maadaama adeerkiina uu noqday wasiir uu ahaa gacmo dheere asigan waa ilaalo ku soo galay ayaa waxaa lagu xiray kadib shaqaalaha raadiyo Muqdisho ka mid noqday Soomaa wiil okay waaxda raadiyo Muqdisho la shaqeynaa teebeed qaybtaysa ahayd adoo faahfaahinaa insha Allah waxaan rabnaa wixii sayta u kala dhigno mogtaa ninkan waxaa barnaamijka ganacsiga nin la yiraahdo oo soo saara ka ahaa oo la dhigi jiray Cabdishii Cali Allah u naxariistee xogaa ina soo dhawaato jacalana si mikrofoonku ugu dhawaaday Cabdishii Cali soo dhaw bravo Cabdishii Cali bravo Cabdishii Cali nin la yiraahdo oo asaga uu garanayo oo qoladan Soomaalida ee dhahdo Carab Saalax Cabdishii Cali marka barnaamijku daadii jiray barnaamijka ganacsiga ayuu ka ahaa program soo saare iyo soo jeediyo labadaba ka ahaa Allah yarxamo okay marka ninkaas ayuu barnaamijka la diyaarin jiray asagoo raaci jiray asaga markii dambe u dhiibay dhowr program uu yiri bal ila akhri waa talantaali aan wada akhrinayna Cabdishii Cali ninkan soo saaray kadib Cabdishii Cali wuxuu ku shabadeeyay in uu yahay nin daarood waan Arab Maxamed Saalax waa wuxuu ku shabadeeyay inuu daarood yahay
daarood waayu dhahay ninkan booskan anigaa ka qaadan doona mustaqbalka macnaha hadalkaas adiga ma taagna markuu lahaa saad ku ha ogaata ha hadalkaas waa joogno anagoo joogno oo wakaaladda wararka joogno marka ninkan mustaqbalka aniga waxaan u qaadanay mustaqbalka in uu ninkani uu noqon doono nin kaga fiican ama kaga cod macaan ama kaga wax soo saaris badan saas daraaddeedna madaxda ay ka qaadi doonto cabdi jecel la dhihi doono ninkan ayaa kaa actifsan ninkaana ku wareejinay meesha saas u haysteen marka adig markuu hadalaas dhihi jiray ha annaga waxaan u haysanaa ninkani wuu ka actifsanaan doonaa wuu ka barnaamij raadin badnaan doonaa wuu ka cod macaan waa ka xumahay waa ka go'yey laakiin nagu soo noqon doonaa cabdisal ha cabdisal waa kusoo noqotay maasanta waa soo noqotay ha cabdisal cabdisal waa soo noqotay maasantahay marka waa ka xumahay qadkiisa xoogaa cilada kusoo baxday insha allah laakiin qadka wuu iska hagaajin doonaa insha allah cabdisalaam waa ninka markhaatiga nool oo hadda lahayo oo weliba dadka si wanaagsan u yaqiino goobjoog ka ahaa la soo shaqeeyey taariikhda uu soo sheegi doono insha allah uu nagu soo noqon doonaa cabdisalaam insha allah sidaas kusoo noqon doona qadka kusoo noqon doona dhibaato malaha balse intaan noo soo noqonaya cabdisalaam waxaan jeclaan lahayn bal inaan waraysi xasaasiya laba waraysi uu bixiyey laakiin mid kamid aan soo qaadanin waa mid uu ku qirinaayo inuu ahaa wariye inuu ahaa oo maanta bixiyey waraysigaasaan rabnaa bal inaan dhegeysano yar waa isku soo noqonanaa cabdisalaam waa soo noqotay braawo cabdisalaam aad iyo aad waa maasan tahay waa soo noqotay cabdisalaam waa jeclaan lahaa inaha braawo allah ciise waa soo noqotay cabdisalaam marka waxaa ka wadaa markaas tartan inuu meesha ka jiri doono halkaas iyo wad marka ka soco halkaas marka ninkan waxaan u malaynaya inuu tartan geli doono uu cabdishii cali booska asaga lagaga qaadi doono ninkii kadib waxaa noo yimid nin asagana allah iraxmo oo la yiraahdo abukar wariye la dhihi jiro asagana oo dhalinyarada ka mid ahaa oo asagana la qaxay qoladii u qaxday madaxweynihii raacday ku jiray laakiin asagana uma dhalan beeshaas laakiin wuxuu iskaa nin dhalinyara iska qaxay oo wariyaashii waagaas iyo qaarkood iska raacay laakiin wuxuu ka soo jeeday beel la yiraahdo shiiqaal waa gart kaasina magaciis wariyaas kale magaciis abukar la dhihi jira abukar yare abukar wariye inta badan ay dhihi jireen soo marka nin aad iyo aad active u ahaa abukar ha marka abukar dhalinyaradaasuu raacay kadib wuu soo noqday abukaraa noo yimid mahad allah iraxmo oo ahaa madaxa ogeysiiska xafiiska ogeysiiska mahad aadan xasan mahad cadda la dhihi jiray iikaadi hega waalin waxaan jeclaa marka hore inagu socodso kii oo la shaqan jiray magaciisa muxuu ahaa kan waxaa tiri abukar wariye waa shiiqaal waa wiilkaas carab saalax uu ahaa kanina wuxuu ahaa abukar ka kale magaciisa tiri iwaali kood carab saalax kana ii sheeg cabdishii cali cabdishii cali wuxuu ahaa ninka wariyaha qaybta barnaamijka ganacsiga ganacsiga u qaabilsan raadi muqdisho okay kaas waa carab saalax waxaan jeclaa nin walba qabiilkiisa inaan insha allah xataa laftiisa aan xusno u kaadi marka kaas labadaas waxay ahaayeen cabdishii cali iyo abukar wariye labadaas shaqaali carab saalax ahaayeen labadu marka waxay ka shaqeynayeen waa ninkan okay hore u soco marka haye raadi muqdisho ay ka shaqeynayeen mahad aadan xasan nin la yiraahdo asagana oo ahaa ogaadeen oo ahaan jiray madaxa ogeysiiska xafiiska ogeysiiska asagana mahad aadan xasan la dhihi jiray mahad aadan xasan haye oo asna ahaa ogaadeen oo ka soo jeeday asagana wuxuu ahaa madaxa xafiiska ogeysiiska raadiyo muqdisho madaxa ogeysiiska okay waa gartay saddexdaas marka asay toos ula shaqeynayeen laftooda sooma may ulama shaqeynayeen macnaha raggaas u calaamaysta rag u calaamaysta waa ma fahamtay asaa calaamadaystay waa gartay wuxuu u haystaa markaas ayuu waa gartay marka xaaladihii qabiilkan aad u kacsan marka xilligaas sooma aad u kacsan abukara marka wuxuu ka yimid dhinacaas iyo kismaayo ka yimid marka abukara marka sheekeynayay markaas waxaan taagannahay meel la yiraahdo wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona annagoo badan marka abukar wuu noo sheekeynayay hebel baa xag kaga soo tegay hebel baa xagga kusoo arkay waxaasuu daldalay marka ninkan wuu soo galay abukar wuxuu arkay waxaas ka sheekeynayo marka wuxuu nisbaystay maadaama abukar ilaa dhulkaas tegay uu dhulkaas kasoo warramayo inuu yahay familkaas marka abukar liiskii uu ku darsada asagana uu dhawaanahan uu soo afjari doono ma fahamtay nin la yiraahdo maxamed cali xaange allah yaraxma asagana waa nin aad iyo aad zaciim u ahaa oo aad iyo aad isugu fiicneen oo laanta afafka dibadda iyo afka soomaaligaba barnaamijyo ka samayn jiray
oo xaqiiqatan xaangi taariikh dheer gadaalan ka geli doonaa marka afartaas horta waxay ahaayeen afartii oo sarta dheer oo musawac uu ku dilay hal subax afartood hal subax uu dilay waxaa tiri cabdi sheekh oo carab maxamed saalaxa abubakar wariye oo shaqaala mahad aadan oo ah ogaadeen iyo maxamed cali xaangi oo ahaa nin ma jirtaan yah ma jirtaan wa aad iyo afartaas hal subax ayuu sarta meesha musawaca dheer oo badda iyo dhulkaas oo ifii mataqaanaa oo baraawo musawac hadda waa shaqeeya musawac dheer waa fahmay afartaas musawacaas ku dilay haye meeshaas musawacoo la galay meeshaasuu ku dilay allah yaraxmo waxaa kuu soo haray nin yidhaha cabdiqaadir cali iidle oo ahaa nin xawaadla asagana sog marka cabdiqaadir cali iidle cabdiqaadir cali iidle oo nin xawaadlaa si fiican haye okay kana waa lambar shanaad waay waxaan rabaa marka dilalkusay u dhaceen inaad noo sharaxdo dilalkusay u dhaceen ilaan waxaan mogtahay lafteeda caawa waxaan dhegaysan doonaa ummadda dhan aan dhegaysanaysa soomaaliyeed meel walba ay joogaan marka waxaan rabaa inaad birsaraxo aad qolo nin walba sida uu dilay iyo taariikhdu haddii aad xasuusto taariikhda xasuusto iyo sababtu iyo xilliguu dilay iyo waqtiyada kala duwanaa xaaladaas waqtigaas waxay waqti xaaladdu xun tahay marka insha allah ku noqoba insha allah wanaagsan horta ninkani marka ugu horreysay aroori hore waxaa shaqada soo galay ninka la yidhaha allah naxariistee mahad aadan xasan mahad cadde ma xasuustaa taarikhda ma xasuustaa taarikhda waa abril ayay ahayd 8-9 meelahaasay ahayd 2011 abril waa 1991 1991 abril 1991 hore ugu socoye marka mahad ayaa aroortii hore shaqada soo galay 8 iyo barka meelahaasay ahayd marka mahad cidna ma tabin sababtoo ilaalada irid ilaalinayso ayuu subax aroortii la soo fadhiistay haye mahaduu gacanta qabsaday meeshaasuu la galay marka dhalinyaro marka meesha taagnida noo sheegta annaga waxaan soo galnay 10kii waxaa la yidhi mahad saaka xafiiska ma uusan furin dhalinyarada iridda taaganaana la taagneed oo dibaddii la taagnaayeen waa garta taakiyaa wuu ku jiray bes marka mahad la waayey oo saaka uusan meesha furin xafiiska ogeysiska uusan furin iyo dhexdii ogeysiska uusan furin marka shaki yaraa bilowday mahad ma laabanine shaquu usoo ka lahay xaguu ka baxay haye kadib abukar wariye haddana soo galay abukar wariye iridduu ka qabsaday haddana meeshuu la galay wuxuu la galaa musawicuu la galaa meesha kore meesha musawicuu la galaa meeshaasuu kusoo qaarijinaya ninkan waa garta wuxuu dilay mahaduu dilay abukar wariyu dilay waa hal subax waa bisha waa abril 91 haye horu soco kadib aniga iyo waxaa nimid allah yaraxmo oo ila seexday habeenkaas xaafadda ila joogay maxamed cali xaangi maxamed cali xaangi wuxuu ahaa ninka tiftiraha afka oo majarteen ahaa luqadaha qalaad iyo luqadaha soomaaliga waa gartaye marka barnaamijyo fara badan uu samayn jira allah yaraxmo xaangi markay dagaaladii dhaceenba anuu ii soo guuray wuxuu yidhi niyow wuxuu aad u jeclaa aniga markaas ma fahamsanayn xaqiiqatan ma fahamsanayn 2 mitir ay sugayso marka barnaamij samaynayn wuxuu dhihi jiray aniga asaga ama ummad kale aan la samaynayo wuxuu dhihi jiray heesta aad ku soo qatimaysid cabdisalaan oo ha ahaato heestii maxamed calciga waa garta cirkaa dheer dhulkaa dheer heestaasuu saari jiray ma fahamta waa garta marka maxamed cali xaangi waa joogaa subaxaas asna labadiina waa timaadeen aniga waa isla nimid markaan isla nimid waxaa la yidhi wasaaradda boostada ayaa riboort ka jira dhaashana allah u naxariistay aa yidhi cabdisalaan meeshaad ka laabo meeshaas riboort nooga soo qaado wasaaradda boostada isgaarsiinta waxa laga qabanaya shaqo xagga riboort nooga soo qaado waa garta waa laabtay xaanga marka meesha ugu tegay ilaan wasaaraddu dhex joogaa intaasoo boqoloo shaqaalo dhex joogaa marka cabsi kama qabo sama macnaha waxaa daaroodka la waarsana marka aduu laftaa waxaa waaye amnigiisa marba wax ka ogaataa jecesho waa la socotaa yani mar walba ka waraysaa ka wada shaqaynaa ha ninkii isku meelaan ka wada shaqaynaa hal meelaan soo wada galnaa haddana markaan baxayno gurigeyga wada tagnaa gurigeygan ku wada noolnahay marka xaangi ani cabsi kama qabin intuu ani ila joogo wax cabsiin kama qabin ma fahamta waa gartay iyo intuu wasaaradda joogana waxaan isleeyahay intaasoo milyan oo shaqaalaha dhex joogaa problem ma dhacayo ma fahamta waa gartay calaa kulli xaal
ninkii hadduu alla ku idmaayo waxaa xitaa ilaahay badbaadiyey nin la yidhaahdo cabdirasaaq xirsi xasan oo isagana majarteen ahaa iyo gabar iyadana meesha ka shaqayn jirtay rag ayaa la qabsaday cabdirasaaq ayo oo inuu kaxaysta rabay cabdirasaaq xirsi xasan oo majarteen ahaa ninkii adi calaa kulli xaal yaana hadalka aan isku milqinin calaa kulli raggii markuu afartaas ka soo taqasulosay ayuu horta xaange iyo cabdi sheekh cali oo markaas dekana qabay ayuu u soo laabtay waa garta marka sidii xoolo ma u wadana dadka macnaha waxaan rabaa saad igaga dhadhiciso saa u fahmaan rabaa dadka dhadhegeysana u fahmaan ninkan dadkii u imaana qofba maalmo mar wadana wuxuu geysanaa meesha kore musawaca dusha uu geynaa uu soo dilaa rasaasta soo la maqlimaa meesha soo maaha meesha raadi muqdisho soo rasaasta la maqlimaa see ku dhici kartaa in qof inta la wato la dilo mid kale haddana la wato la dilo waxaan rabaa bal inay bilsarax bal noogu si tabal noogu sheegto waa su-aalaha le meesha kiimide horta sarta musawaca ma la fuulayo ganjaalka weyn marka laga soo galo hoosteed meesha dilaya mafaham marka iridda ganjaalka laga galo wasaaradda warfaafinta waa taqaani waxay kasoo horjeed ciidanka booliiska kasoo horjeeday meel maqaayad meel oo kafeteriya shaaha laga cabo shaqaalaha ka cabaanaya lahayd shaqaalaha ganjaal yaraa ku dheganaa oo musawaca laga galo sartaas laga galo musawaca ilaa waa ganjaal lahayd marka ganjaalkaasuu la gelaya meel barxad oo meesha isla meesha ayuu ku toogto mafaham waa garad marka hadduu alla ku idmaayo ninkii sidaas ayuu horta maxamed cali ninkan la yidhaahdo mahad iyo abukar wuxuu ka helay ganjaalka gudaha maba soo gelinba ma fahamto waa garta oo qof ogaan karta ma jirto ganjaalka weyn oo aragtay waayo rasaasta dee dhacdo soo la maqli ma cabdisalaan see ku dhacday rasaasta rasaasta dee waddankii waa iska USC waagaas xabadaha iska dhacayeen mana la tuhmaynin midda kale ninkan afsaaru kaga dhigay dhegdheg meeshuu ku dilay wax aroor hore ahayd qof tuhunta ma jirto labadaas aroortii hore uu kaga taqallusado okay markii goormaa ogaa dootay marka adigu goormaa ogaa dootay ilaa maalintii intaas adiga saaxiibka adoo shaqo ku maqana saaxiibkaa la cunay saad sheegayso ninka ahay maxamed cali xaangiya ugu dambeey ayaa la cunay marka afartaas markuu cunay kadib maxaa dhacay bal intii wixii dhacay bal noo sheeg kadib aniga horta 10 subaxnimaan soo galay markaa 10 soo galay allah yarxam dhaashanay ayaa iridii iga hor yimid meesha barxadda iga hor yimid oo wasaaradda faafinta gudaha marka loo soo galo markaas wuxuu ugu dhahay niyo orod carar wasaaradda waxaa tagtaa boostada isgaarsiinta barnaamijkaas nooga soo qaad waa gartay marka xaango ila socday xaango waxaan ku dhahay niyo halkan iska sii fadhiisto dhallinyarada iskala sii sheekayso waa kuu soo laabana xaggan tagaa markaasuu dhamay haddaan halkan joogo cabsi ma qabo iska bax waa iskaga soo baxay xaggaasaan tegey marka xagga ka soo laabtay yaa shaqaalihii oo buuqayaan u imid meeqa saac soo laabatay marka dilka waqti u dhacay soo dhacay adi meeqa saac soo noqotay waxaan rabnaa ileen adduunyadana dhegaysanaysa wixii inaan dhabta inaan wixii dhabtiisa sida ahayn xasuusano 6 saac ama 12 duhurnimo soo laabtay markaan soo laabtay meeshuu kacsanaan imid cabdiqaadir cali iidlahan allah naxariistay iyo cabdi sheekh doon nageeyi iyo rag fara badana meeshii walaacayo qeelqeelinaya shaqaalo fara badan oo iska daba wareegaya meesha ugu imid iyo oday la yidhaahdo cali waranto oo madaxa farsamo yaqaanada ahaa iyo dadkaas hadda ma nool yihiin raalo dadkaas hadda ma nool yihiin oo hadda aad sheegayso oo maalinkaas markhaatiga nool ahaa wax ma ka nool yihiin ma noo magacaabi kartaa xilligaas taarikhdaas wuxuu dhaceen dadka jooga oo nool oo hadda raadi muqdisho ka shaqeeya ama adduunyada meel kale ka jooga si aan waraysiga u xoogaysto horta wallaahi rag fara badan aan nool hadda cabdi sheekh doon nogeeyo kale allah yarxamo hadduusan dhiman hadda saacadaha hadda aan taaganaha wuu noolaa wuuna joogaa hadda saan jeclahay subaxaasan sheegaa subax dhib ka dhacaya dadka jooga u baahanahay oo si aan ula xiriirno aad wuu joogay cabdi sheekh doon nogey wuu joogay waana ninka keliya ka dagaalamay sida xaqiiqda ah waxaa kaloo joogay nin la yidhaahdo cabdiqaadir maxamuud walaayo wuu joogay waxaa joogay oo ninkan hadda cabdirasaaq xirsi xasanka hadda aan kuu sheegayo wuu joogay hadda ma inkastoo maqli fiinland ayagu ku nool yahay waa inaan raadiyo waayo ma hayo ciwaankiisa laakiin rag fara badanaa joogay oo waagaas noolaa hadda shaqaalihii ila shaqeynaa waaye dadka shaqaalaha oo maalinkaas dhacdadaas jooga oo adigu aad ka mid ahayd
oo aan rabna haddii aan xasuusteeda inaad xasuustaas insha allah bal inaad ku noqoto si aan waxaan rabnaa dadka kale laftooda aan u helno dhacdada see u dhacday oo dhabta ah waxyaabaha ka tagta ama ilowday inaan xasuusanno oo haddii ay suuragal tahay bal mar labaad ku noqo si bal haddii xasuustaada ay suuragal tahay maame waa xasuustaa waxaa joogay nin lidhaha injineer cabdullaahi yuusuf oo haddeertaan muqdisho joogo rag fara badanaa joogay raggaasi waxaa xaqiiq ah dadkan adduunyada sideeda 2 mitira dadka sugayso ma fahamta inuu qofka been ka sheega ma wuxuu u taagnaa ama uu markhaati ka ahaa afartaasi nin kadib waatuu wadana soo laabtay marka annaga waxaan ku xaqiijinay ninkan la yiraahdo oo aad iyo aad kiiska u fashiliyey inuu asaga ka dambeeyo kiiska cabdi shii cali ayuu inakaan dhahay cabdi shii cali lagu dareemay inuu labadii kala waayey saaxiibadiis haddana uu xaange asagoo qasbayo laba wiil oo kaleentoodna ay xaange garabka ka qabteen ay jiidayaan ayuu cabdi shii cali indhaha saaray suu cabdi shii cali sheega allah yarxam intuusan dhiman cabdi shii cali ninkan ayuu soo jiiday dhalinyaro fara badan oo kusoo yaacay war ninka xagee u daa markaasuu dhaw ninkaan iyo mataqaana dhexdeena ka baxay hubeysay markaas ninkan qorigu wataa maqori wataa wiil oo kale la socotay cabdi shii cali wuu qalqalay markaasuu dhaw ninka xaangu hadda halkan la galay ninkan iga reeba asagoo dhahayo ayaa uu asagana qolka la galay isla markaas xabadihii intii cabdi sheekh doon nageeyey iyo saraakiil fara badan oo meesha ka dhoweyd ku soo yaacayeen xabadihii uu qabadsiiyey markaas xabadihii si fiican loo maqlay gudaha la galeen waxaa la arkay mahad iyo abuukar iyo xaange iyo cabdi shii cali markaas u dambeeyey uu sii jiiday afartooda markaas raxdooda loogu tegay meesha afartooda hal maalin afartooda marka ma hal maala la duugay aaskaas ku dhacay xaggee lagu duugay adigoo maasan horta waa arrin muhiim ah saa ii weydiisay ninkii isla markii gasgas nin la yiraahdo generaal gasgas inaad taqaana jeclahay cusmaan gasgas taliya-xigeenka ciidanka booliisku ahaaye ayaa markaasi meesha marayey oo xeradiis sii gelayay meeshuu arkay wasaaradda warfaafinta irideeda laisku dagaalayo laisku buuqayo asagii ilaalihiis way istaageen way soo degeen sidee wax u jiraanaa la yiri waxaa la yiri raggaan oo shaqaalaha ka tirsan ayaa meesha meydkooda lagu helay ninkan ayaana ka dambeeyey kiiska wuu inkiray isla markii wuu cararay meeluu galaa la waayey saaxiibadiisa gaariga dabada usoo marka gasgas meesha wuxuu yiri kiiskan waa la baarayaa xeradiisu iska sii galay xoogaa kadib waxaa noo yimid nin la yirahdo allah yarxam uu dhintay gentleman inaad taqaana male oday siyaasi ahaa jiray si fiican kiiskan waa la baarayaa isdejiya shaqaalihii waxaas uu gudbeeyey nimankii markii xoogaa gabalkii dhici rabay ayay gaari ku qaadeen meedadkii waxay ku daadiyeen waddada warshadaha oo ma la aasin meeshay ku daadiyeen way ka soo tageen yaa meydkaas yaa qaaday oo kusoo baabuurta intuu ku qaaday meydkii jidka soddon kusoo daadina taas bal ii xaqiiji waxaa kusoo daadinaya beeshuu asaga ka dhashay raggii meesha ka joogay oo mooryaanta ahaa oo irida taagnayd okay oo raadiyaa haystay waa fahmay waa beesha Saleymaan waa haye wax ma ka xasuustaa dadka saas weegas xilligaas meesha ka shaqeynayay oo asiga la shaqeynayay wallahi waa ciidan waxaan waa USC ahayd ciidamo qoryo watay ahaayeen wax magacooda lama garan karin malaayada marka asagaa naga soo dhex galay asagiina soo dhex galanana wuxuu noo soo dhex galay problemkaan ma fahamta waa gad asiga hore shaqaale dawal muu ahaa hore muusoo shaqeeyey suu noo sheegay macallin iskuul BB ba ahaan jiru nagu dheh macallin BB na hayo kule okay aye marka dilkaasu waxay noqdeen marka saa ishat afar wuxuu dilay Cabdirashiid wuxuu dilaa tiri ninka la yiraahdo Cabdirashiid oo ah Carab Maxamed Saah wuxuu dilay Abuukar Wari oo shaqaalaha mahad aadan oo ahaa asigana ogaadeen waxa uu dilay maxamed cali xaangi oo ahaa ma jarteen afartaas wuu dilay waxaan rabaa marka cabdiqaadir cali iile iyo cabdisaaq xirsi ayuu ma ka fakadeen see wax u dhaceen malaayig bal loo xaqiijisay cabdisaaq ninka leeyahay cabdiqaadir cali iile iyo xawaalaha iyo cabdisaaq xirsi xasan cabdiqaadir cali iile allah u naxariisto wuxuu ahaa tafaftiraha raadiyo muqdisho ahaa markaas ka hor uu ahaan jiray xilaa dowladda gacanka xataa u ahaa waa fahmay cabdiqaadir cali iidle wuxuu taagnaa wasaaradda warfaafinta meesha laga galo waa taqaanaa meel yar oo shubaa ku aadan maaragtay oo balkoon camal baal shub ah marka jaranjarta la fuulo shub ayaa meesha dushaada ah sooma marka shubkaasuu taagnaa ninkanina
gacma dheer ayaa wuxuu u soo qoray maadaama uu yiri wax xanuunsanahay lacag yar oo gunna ah oo liiraa farmashiya wax kaga soo iibsa camal haye lacagtii marka wuxuu ku socotay nin liiraa cali baay oo ahaan jiray ninka faaladii qori jiray oo markaas ahaa uu qaabilsanaha dhaqaalaha wasaaradda warfaafinta waa gartay marka waxaa liiraa warqadan qaado 100 iyo xoogaa kun meel mise 1 milyan wax saas ah markaas liiraa orod cali baay ula tab kala ka qaada lacagtan haye ya asaa ula tagaa taakay marka wuxuu u yimid cali baay wuxuu ku dhahay lacagtan baa wasiirka ii soo qoray si waa maalin kale yaa markaas ma aha maalinta uu raggan dilay ma oo ninkii asoo u kaadib cabdisalaam ayda baltay arrin kale xumaan mushkil kale ninkii asoo dadka laayay ayuu haddana dhex joogaa dadkii miya macnaha wasaaraddii weli ka shaqeynaa oo dadkii uu laayay shaqaalihii wasaaradda warfaafinta asigoo laayo haddana ka dhex shaqeynaa miya oo ka dhex shaqeynaa oo weliba ilaaladii wasiirka yaa weli oo ilaalada wasiirkaas magaciisa ku cilmi marnaba dadka kula maqnaane maxamed maxamuud gacma dheer aa la yidhahdaa waa wasaarihii hore oo xilliga magacaabay cabdullaahi yuusuf waa daba wasaare noqday may waxaa madaxweyne ahay cali mahdi waxaan ra'iisul wasaare ahay kama hadlay xilli dambe ra'iisul wasaare loo magacaabay oo soco waay xilli uu soco waay maxamed gacma dheer laftii nooliya sax waa ra'iisul wasaare ku meel gaar hadda ka soo mar sax waa bravo waa fahmay marka afartaas soo dilay ayay marka tan sheekadan kala dawad marka qisadan ka ku dhacday marka noo dhameystir qisadan wasiirka ayaa wuxuu soo saxay lacag yar oo ninkan dhakhtar ku tagay 100 may ahayd mise milyan wax saas ahayd cali baay ayuu u qaabilsanaa wasaaradda warfaafinta qasnaji cali baay ula tagaaliyay ka qaado lacagtan cali baay uu yimid cali baay wuxuu yiri wax lacag oo mataqaanaa soo sarrif habeeraatay ma jirto lacag kaash ma hayo laakiin daawadan hadda u jiran tahay anaa kuu soo gadaa magaceediisii inta kuu soo hartan oo dhaqaalaan oo ku siinaya laakiin marka hore hadda wax kaash ma hayo markaasuu yiri maaniga saas ugu leedahay uu carray iriduu tagay iridii wuxuu ka soo qaatay mid meesha joogo qor ka soo qaatay laba wiil oo qoryo watan ay ka soo daba carareen jaranjarta uu soo fuulay cali baay wuxuu ku jira xafiiska iridda waxaa taagan nin la yidhaahdo cabdiqaadir cali hiid allah yaraxmo marka wuxuu is yiri intaad gudaha gelin xabad inuu qoriga shaqeynayo in kale xabad barowaa rid marka wuxuu ka qaldantay meesha inay tahay shub xabadii barowada ahayd intuusan cirka u ridin ayuu shubkii ku dhuftay xabadii way soo laabatay cabdiqaadir madax kaga dhacday cabdiqaadir goobtii ku dhintay allah yaraxmo cabdiqaadir waa qofkii shanaad uu dilaayo cabdiqaadir markuu meesha ku dhaco dhintay ninkii wuu falkanaxay wuu cararay meesha qaybta dambe cabdiqaadir waa xawaale suk waa isla fahamsanaa cabdiqaadir waa xawaale kuwan kale waxay lahayn dad oo beelahoodu macnaha daaroodkii qahay qaybo ka mida iyo dad uu maxamuud saalax nina iyo intaas ahay yar shaqaale ahaayeen marka laakiin tan wiilkan waa wiil uu ama waaso ama cabsigeli uu islahaa laakiin ay xabadda ku fakatay marka xawaaladu noqday ma sii jooga haddana kuwii hore waa sii jooga aragnay marka ninkan xawaalada markuu dilay maxaa dhacay marka uu ninkan dilay allah yaraxmo isla markaas waxaa meesha marayay oo markaasna ahaa gudoomiyaha gobolka ahaa cumar xaashi allah yaraxmo inaa maqashin kale waa sax cumar xaashi meesha baarlamaanka ilaa iyo guriga cali mahdi ciidamadii joogana waxay ahaayeen meesha uu ka soo jeedo cabdiqaadir cali hiid isla markay maqleen ninkaana la dilay way soo yaaceen meeshay soo galeen waa garta xawaalihii markay meesha soo galeen ayagoo hub fara badan watay iyo baabuur fara badan waxaa la harqiyey qoladii uu taakaya la jooga meesha ayaga dhanba waxay ku ahaayeen 30 iyo waxsaas wiilay ku ahaayeen 300 oo ciidana timid oo familkii cabdiqaadir cali hiid allah yaraxmo waa garta dhulkii dhan ay qabsadeen waxay dhaheen wax nuuxsan kara ma laha taakayihii marka wasaaraddu ka dhex baxay madaxtooyadu galay isla markiiba intuu qoriga tuura marka madaxtooyada xilligaas salemaanka dhinaca keesta madaxtooyada markaas sacada haysta may sacadaa joogay laakiin ciidamadu dhex galay markaasuu yidhi war aniga reerkaasaan ahay xawaalada ay dili rabo hallii badbaajo ma fahamta waa gartay bes meeshii ku hayeen xawaalihii dhalinyaro meeshii joogtay oo qoryo wadatay oo ka soo oo taakay la socotay ay waxay ku arurseen gawaarida waxay dhaheen iidda keligiis lama aasayo nimankana lala aasaya waa garta hurwaayaan geysanaynaa hotel garguurtaan geysanaynaa marka raggana lala aasaya iidle midka way qaateen raggana gacnahay ka xirteen baabuurkii ku qaadeen waa garta
cumar xaashi allah yaraxme iyo rag la socday ahaayeen way qaateen hurwaayay geeyeen saacado kadib galbihii camalay soo sii daayeen ee dheheen orda dadka familka marka loo geeyaa layidhi malaha nimankani ma rabno ninkii wax dilaan rabnaa ma fahamta waa garta nimanka waa la iska soo sii daayey taake ma soo noqi taake marka dibdib kugu soo noqdo ma soo noqon karo sababtoo ah isla markiiba xawaadlihii waxay sameeyeen ciidamadii USCda meesha jooga ayay rag ku darsadeen ma fahamta waxay baawuri soo dhigteen waxay dheheen ilaalada meeshaan wasaaraddan ka mid noqon doonaa ninkaas ayaan ka dhex raadsanaynaa meeshaan joogaynaa waa garta waagaasna wax oo protocol ma jirin wax meesha ka eri kara ma jirin qof kasta meeshay tiraado intaa ilaalo ka naqana qof u diidaysa male meesha iska fariisteen ma fahamta haye taakay marka meesha uu dareemay inay xaaladdu xun tahay kuma soo noqon maalintaasoo noogu dambeysay isla marka waxaan maqalnay ninkii Kenya uu orod ku tegey Kenya markuu orod ku tegey isla markiiba islaan process Canada u xareysay oo meesha ka helay oo tiri guurso islaantii oo malaha process ciyaalkeedu kula xareysay maqalnay sidii uu Canada ku galay ma fahamta Canada adigu wadada Mareykanka ma Canada meesha hata xilligaas marka uu galay Mareykanka kadib ma Canada uu galay kadib markaan ogaatay go'aansi ku ogaatay laftaada cabsanaan xilligaas dad yaraayeen saad ku ogaatay inuu taakii yahay xaalad bal si fiican ugu sharax masa saad ku ogaatay bal arinta ogaansho oo noocay markuu hadda social media soo galay mase social media markuu soo galaa social media markuu soo galay ninkan waa aqaan wajigiisa waa aqaan nin iga dhumaayo ma ahaan codkiisa waa aqaan waa asagii wali wax iska bedelay